mudane Uhuru Kenyatta barnaamijkaas oo ah in looga miro dhaliyo si degdeg ah talaalka carruurta 5 sano ka yar muddo 100 maalin gudahood sidaan ognahay marxaladooyin aad u adag ayay soo martay caafimaadka dalka Kenya waxaa jirtay shaqo joojin mise hawl joojin ay suugiyeen qaasatan kalkaaliyayaasha oo door weyn ka qaataan caafimaadka guud oo dadweynaha taas ayaa waxay noo keentay dibdhac dhinaca talaalka carruurta qaasatan inaan gaarno hadafyadiina laga rabay inaan gaarno talaalka gaarisa oo Kenya ka tirsan lamid bay ahayd waddanka dhan dibdhac aad weyn ayaa nagu dhacay taas ayadoo u fiirinayno mise ayadoo madaxweynaha u fiirinayo iyo madaxweynuhu ajendarkiisa 4 ajendar ayuu leeyahay ognahay markii labaad hadda doorashadu ku guuleystay 4 ajendar waxaa ka mid ah caafimaadka dadweynaha dhanba caafimaad ay awoodaan oo culays dhaqaale aan ku haynin oo tayo sare leh mise heer sare leh inay helaan labada arrimood ayadoo la fiirinayo ayuu madaxweynaha baaq noo jeediyay countiyalka ee caafimaadka hoos imaadaan nuguna amray inaan muddo 100 maalmood gudahood aan meel dhalin degdeg ah waxaa la lahaa rapid result initiative inaan meel dhalin degdeg aan kaga subino talaalka ilmaha waxaa markaa anaka hol noo talaa hadan Garissa County bahda caafimaadka Garissa County hadaan nahay in aan talaal la gaarno ilaa iyo ilma ka badan 12,300 oo 5 jir ka yar talaalo kala duwan ah marka maanta qaybaha kala duwan oo caafimaadka iyo partnerska nagala qayb qaataan inaan caafimaadka Garissa aan hormarino UNICEF kamid ay tahay UNHCR kamid ay tahay Red Cross ay ku jirto iyo xubno kala duwan oo Garissa County si dadban iyo si toosan bay u taawanayso barnaamijka caafimaadka ayaa shirkan maanta nagala qayb qaadanaya marka maanta waxa halkan noogu bilaabanaysa oo aan shaaca kaga qaadaya 100 maalmood 20 beri ka hor inay bilaabato ay ahayd laakiin xiriir xuma ka Nairobi ka imaatay ayaa dibdhac nagu riday xiriirkii markii aan helnana waan howlgalnay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay aan ku riyaaqsanahay in Garissa County ay tahay county-ga ugu horeeyay 47 county oo kale Kenya barnaamijkan si rasmi ah shaaca oo qaado howlgalkeedana soo gudbiso istiraatiijiyada iyo balaanyada ay leedahay mise qorshooyinka ay leedahay ay soo bandhigto ayadoo barnaamijyooyin laga wada tashanayo oo maaragtay taladan laga wadaagayo ay yihiin